marna isma lahayn noloshaada ayaa saa u dambeyn doonto sawirka halka noo saaran waa gabar weeyaan gabadhan social media waxay ku martaa oo magaca ay ku marto waa shuruuq malakatul shuruuq ay ku martaa waa ku soo baxaysa gabadhan asalkeed waxay u dhalatay Kuwait waxay isjeclaadeen iyadoo Kuwait joogto wiil Syrian ah isjeclaadeen ka bacdi ehelkeeda ayaa u diiday aabeedii hooyad way dabcan way u diideen waxay dhaheen ninkan kuma ogolin duruufo jir awgood inay guursatid gabadhi way baxday waalidkeed warkeeda way maqal weyday waa naag nin jeclaatay walaashad ayay lacag ka xadaa liir kadibna waxa li Almaaniya soo aaday oo Jarmalka ah ninkii iyada Almaaniya isla soo aadeen ka bacdi ninkii meeshii ay isku guursadeen markii is guursadeen ayaa problemka ugu batay gabadhan bilood gabadhan waxay ahayd markeeda hore gabar daayar oo aad u qurux badan oo ma sha Allah ah oo wax barata ayay ahayd shuruuq gabar furfuran ahayd gabar aad iyo aad ma aragtay ka dhex muuqatay meeshii ay timaada ayay ahayd gabadhi markii ay Almaaniya timid ee ninkii guursatay ninkii markii ugu horeysay waa uu ku xumaaday hadii uu ku xumaaday depression ku dhacay way xanuunsatay waa uu ka tagay jacayl xooggan way u qaaday hadii uu ka tagay iyadii iyo beebiga caloosha ku jiray sida isku tacbaayeen iskula daala dhacayeen alxamdulillah ala salaamataha beebiga waa dhashay depressionkii oo umusha hadan ku sii dhacay aad ay u xanuunsatay gabadhii social media way soo gali jirtay arrimaheeda dhan bay ka hadli jirtay taariikhdeeda dhan bay ka warantay familigeeda ka warantay wixii ku dhacay ka warantay ninkii jaceelka u qaaday ka warantay inuu ninkii ka tagay ka warantay inay xanuunsatay waa la socday gabadha kiiloogeedii aad u batay ilaa uu tagay 200 ku dhawaad miisaanka jirkeeda saaran kaliya gabadhii yareed hal mar ayaa shakligeeda waxa uu noqday inay jirto 70 sano qof jirta ayay noqotay okay gabar yarna waay waa u jeedaan sawirka meesha saaran aaday isku bedeshay waa la walwalsanaa haddana saasay tahay dadku waxa ay wehel ugu ahaayeen social media ay ku jirto live-ka ay soo galaysa ay wehel ugu ahaayeen almuhiim war ii dhimaantiisba gabadhii ilmihii yaraa waa laga qaatay ninkii waa uu ka tagay gabadhii waa iska waalatay waa iska xanuunsatay ilmihii yaraa waa laga qaatay markii la arkay inay korin karin oo depression ku dhacay xanuunsanta iyadii u baahan tahay in la haayo ilmihii waa laga qaatay Yurub waa taqaanaan markii la joogo qurbaa waa ogtii ilmaha waa la iska qaataa ilmihii markii laga qaatay gabar yar dhashay marka gabadhii markii laga qaatay waxay sameysay way soo gali jirtay waa la arki jiray inay soo gasho inay iska meesha mar iska ooydo mar iska qosasho mar iska qayliso almuhiim wiigi hore gabadhii la waayay nag show gabadhii waxaa la geeyay isbitaalka dadka walwaalin baa la geeyay isbitaalka markii la geeyay cabaaray ku jirtay dadkii yaa raadiyay gabar saaxiib ahaayeen yaa raadiyay oo marka soo wardoonin jirtay ehel uma jooga meesha qaraa uma joogin gabadhii waxa loo sheegay isbitaalka in laga saaro isbitaal caadi la geeyay isbitaalka caadi hadii la geeyay gabadha meedkeeda waxa laga helay talaagada waaba dhimatay qoftan way dhimatay talaagada ku jirta almuhiim dardaarankeedu wuxuu ahaa in lagu aaso maxaan ku raahdaa Kuwait lagu aaso la qaado Kuwait lagu aaso sidii loo sameeyay waa la qaado Kuwait lagu aasay gabadha Soomaaliyeed marka waxay moodaan aan u soo qaato sheekadan waxa waaye gabadhan caanay ka tahay social media shuruuq qof caan oo ka ah way shuruuq ma fahanteen TikTok iyo social media haba ninbaasa u xumeeyay ninbaasa marxaladda ninbaasa u gaarsiiyay rag Soomaaliyeed aad ku dhigantiin oo kaliya dadka ma dhibaateeyaan adduunka nin meel walba uu joogo ayuu dhibaatada ku hayaa hooyo